بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيل الآن قصعة وزيرك بيرها صوماليا. وزيرك بيرها هول وو قبتاه هولنا وو قبي مركا هولتو قبي أهربا إنان تصو beeralayda Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin wasaarad xoog leh waxay ku qoran wasaaradda ziraaca al-idaara al-aama lis-saqaafa az-ziraaciyya si beeralayda wacyigooda loo kordhiyo waxa waaye maskaxda wax kordhiso meeshan waxa ka helaysaa kutubto idil haddeer waxaan soo iibsaday kutub fara badan oo meeshan aan ka soo qaatay waxa ka sii daran kutubta lacagta lagu gadaayo waxaa lagu gadayaa 5 senti iyo wax 10 senti camal ah 0.1 aa lagu iibinayaa waxaad u jeedaan waxaa qofka la barayaa ubaxyadii hadduu samaysanayo meel dhirta lagu barbaariyo oo nursery ah yacni mowduuc walbo xataa bakaylihii waa kuwaana buugagta tufaaxa sida loo beero iyo wax walbo ku saabsan tufaaxa sida xataa dhirta maxaa la dhahayay tajfiif loo qalajiyo ama qabow loogu dhigo aywa kan xataa hadda waa iibsanayaa kan xataa waa iibsanayaa naam صح نزود الكتب كمان ده ذات استنى كده عشان انت كده عديت ال 200 عديت 200 يا الله ها نزود ان شاء الله نزود ما فيش مشكلة واكنا dad badana waxay rabaan sida geelka loo dhaqo waxay rabaan sida goronyada loo dhaqo waxay rabaan sida digaagta loo dhaqo waxay rabaan xasharadaha u fiican beeraha iyo aafooyinka sida loogu hortago waxay rabaan waxyaabo fara badan waa kana hadda fiiri bal arka sida loo sameeyo caanaha iyo yogurtida sida timirta loo beero iyo waxyaabaha la xiriiro bataatiska buug gooniyu leeyahay buugana waa 10 senti saa u jeedaan fiiriya Allahul musta'aan meeshan buu waqti ka buuxdo waa kana shaciir waa sareen miya ma og shaciirka kale baarliya af ingiriiska lagu dhahayo ila tahay sida rumaanka loo beero mooska Soomaalida moosaska ugu qaalisan adduunka ka mid ahaan jiray buu ka hadlayo mooska ma jira mase ma jiro hadii la soo saar anigu waqtan hadda waa soo gatay rumaanka buu gooni baa ka hadlayo hatta iska dhaafay tiitiinkii qodxaha lahaa gabadhaas quruxda badan ma aragtay lagu xayeysiinaya oo sida loo beero iyo wax walba ku saabsan la baraya walow Soomaaliya u baahneen laakiin maanta buugan aniga waa soo gadanaya tiin waaye waa tiin waaye Allahul musta'aan xasharadaha beeraha dhibo faakihada waxa dhibo waa kuwana xasharadaha waxa waay ma aragtay cayayaanka iyo cayaandilaha iyo waxa loo isticmaalay waxa jira buug kale oo citruska ka hadlaaya liimanka kala duwan iyo noocyadooda timirti iyo maxaa la dhahayo qoonihi waa kana asraar iyo fawaa'id waxa laga hadlayaa sirta ku jirta iyo fawaa'idda timirta oo ma aragtay naarijiilka ma aragtay qumbaha iyo ma aragtay geedaha la xiriiro oo ma aragtay oo balmiga af ingiriiska lagu dhaho meeshan waxa way dooradii iyo digaagtii waa kana boolo waa tana cagaweyn waa kana maxal lahay dooradii ayadana waa tana shimbirtii kale oo guuska la dhahay bakayle ukunta sida loo soo saaro waxa way wasiirka inuu ajalkan gaari doono way ila tahay aniga beerahan jeclahay beeralayna waan ahay af arbigana waa ku hadlaa buu waqtaan oo dhan badankooda haddeer waa soo iibsaday inaan akhriyana waa rabaa oo wax ka faa'iido wixii aan ka faa'iidana aan la wadaago ummadda Soomaaliyeed beeraheena aad iyo aad wax u soo saar ma laha waa kana meeshan waxa laga baranayaa sinaacatu nasha buugan waa soo gatay waxa way sida loo sameeyo walaangada xalwada lagu sameeyo sida loo sameeyo meesha laga baranayaa
xataa waxaa la barayaa markii waxa soo baxaan sidii macmacaan loogu samayni lahaa. waxaa inta laga hadlayaa sida timirta loo beero oo ma aragtay oo Masar weli gobol ka sii tirsan oo ma aragtay fi Masr Cilya oo naqiilka ah. maasha Allah tabaarakallah, waddan horumaray waxaa ku ogaanaysaa inuu fikriga xoogga saarayo. wasiirka waa kanaa cajalkan, wasiirada waa isba bedelaan magacyadooda, aniga ma aragtay xoog ma saari mana xiiseeyey, shaqana kuma lihi. laakiin mid walboo maanta jooga cajalkaana dhageysanayo inuu lacagta wasaaradda uu geliyo jaamacadaha ardayda uu dhaho waxaan rabaa buug ka hadlaayo yaanyada min alif ilaa yaa. buuggaasoo ma aragtay markii la soo saaro wasaaradda ay iibiso, ayna ku iibiso lacag dhan 10 senti 5 senti markii la soo daabac gareeyo. qof walboo beeraley ahna buugga soo gato uu fiiriyo marxaladaha ay marayso iyo intuu ka heli karo wax oo cilmi ku salaysanna inay ahaato. waa kana waxaan qaylidhaanteeda u dirayaa wasiirka beeraha. ummadda Soomaaliyeed waxaan arkaa aalaabo ayakoo ma aragtay loo keenayo kiish bur ah, saliid 3 litir ah, 3 kiilo timir ah, habar waayeel la dhahayo dusha saaree bax musawirna laga sii qaadayo oo hooyadeenna ah Soomaaliyeed. wasiirka beeraha hadduu Soomaalinimo ay ku sii dambayso, lacagta uu ma aragtay meelaha qaladka ah ku baxo kala camal ardayda jaamacadaha ha siiyo. hadhaho waxaan rabaa buug ka hadlaayo shinnida. 3 sano shinnida buug way ka soo saari karaan, ama hay-adaha ururada shinnidoo kala camal lacagta ha siiyo. haddeer waxaa jiro ururka shinniileyda Soomaaliyeed oo aniga aan ka mid ahay. waxay soo saari karaan buug ku saabsan shinnida iyo wax walba loo baahan yahay oo ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iidi karto. waa kana cambaha Soomaaliya iyo cambaha Masar waa kaaf iyo kala dheeri. dadka waxay dhahaan cambaha Soomaaliya waa macyahay, bal iska daa mooska Soomaaliya iyo mooska oo Masar waa kaaf iyo kala dheeri ah waaye. marka waa kaas intaasaan ku soo gabagabeynayaa. buugta maanta soo qaatayna waa idin tusayaa. بس نزود هذا كمان إن شاء الله. وكنا ما أنت أنو بوجان سو قاطي سأو جدًا العجان كبحنا يا. هو ب 5 جنيه 60. لا ده وكنا ده ب 12 و15. رمانك Soomaaliya rumaan fiican ma haysato. waa kana mooska Soomaaliya moos way u baahan tahay. geedkan xaranka shaa la dhahaa ama fisilis af Ingiriiska lagu dhahaa. tiinka watiini wazaytuun quraanka lagu sheegay. canabka maxaa la dhahayay geedaha timirta ama maxaa la dhahayay زيتونك أما قوافضة. زيتونك والتين والزيتون قرآن كلو شاقي محل هاي جيدها أو ما عرفت حواجيات كتوابل بهاراتك لقضة سيدي لو دقالين لها مثلا لو هرمرين لها وكنا حشراتك سيدي لو لدق على تماي فروتك. هذه 2. الجزء الثاني وهكذا 6 جزء واي 6 هذا الجزء بواسوقات. عنبها Soomaaliya cambo way u baahan tahay sida loo sameeyo walaangada iyo waxyaabaha walaangada la xiriiro. malabka sida alaabaha loo xifdiyo oo ma aragtay iyadoo qabow iyadoo qaleel ah. mashiinada oo ma aragtay beeraha loo isticmaalo. maxal lahayay kan guguuba la dhahaa waxa laga saaraa saliidda batroolka oo kala camal laga soo saari karaa oo baansiin uma baahanaysid. kan waxa waaye maxaa la dhahayay nacaamaal dhahaa mas magaceeda ostrich af Ingiriiska lagu dhahaa. waa kana sida ma aragtay fikir loogu qaadani lahaa oo loo rabayani lahaa waxyaabaha laga soo saaro dhan mujidan. waxa laga soo saaraa xataa kabo iyo jaakad iyo maxaa la dhahayay iyo saliid iyo hilib intaba. yaa
goronyada waa taas geelka ugu badan adduunka Soomaaliya iska leh hal buug oo geelka ka hadlaayana ma laha waa saliidaha maaragtay la isticmaalo cuntooyinka marka waa kaas wasiirka beeraha Soomaaliya waxa uu sheegayaa inuu cajalkan uu ma aragtay Allahul musta'aan ka faa'iideysani doono lacagta wasaaradana uu siini doono ardayda jaamacadda dhigato ee Soomaaliya si buuq loo soo saaro sidaan oo kale waa kana wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh labadan buugna waa ku daraya wassalaamu calaykum